joogay dabaysaas ayaa wax waday ra'yi baa laga hore u soo dhisnaan jiray walwaljeesha Soomaaliyeed hal isu geeyay oo ay ka timid intaas Soomaaliyeed waqti Ingiriis uu haystay afar dal oo Soomaaliya Jabuuti ma ka maqnay inta kale hayay walaasa afartii dal dawlad qura cimilada iyo lacag qura iyo administration qura u yeeshay Somaliland iyada inta waxaysataa barigaas ay wax qabsatay ay gacan qabsatay waxa ay leedahay barako leedahay iyo waxa ay leedahay barwaaqo leedahay wadajirku ayaa bariga la arkay fikradda la yiraahdo Greater Somalia bariga dagaalkii soconayay ayay dhalatay lixdankii haddaba barigaas aad oo maanta loo oomay in Soomaali maxay hayday kulligeed meel la isugu geeyo barigaas ay abuurantay laakiin maca asaf inta laga fariistay oo la yiri sidee bay ku iman kartaa waxay siyaasiya markii aad arrin siyaasiya marka aad doonto inaad fuliso cadifadiyo siyaasaan doonaya kuma fuli karo waa in loo dhigaa takhdiid plan loo dhigaa wala sidee buu ku iman karaa ra'yigii annagu markaa lixdankii iyadoo aan wax takhdiid oo badan oo la dhigay aanu jirin dadkii aanu xagga ugu tagnayna kulligii aan sidii annagu bil ijmaacan uga wada raali ahayn israac ama ugu wada haraadanayn aan loogu wada haraadanayn ayaa la israacay bilowgii waa laaxan ka galay bilowgii ayaa laaxan ka galay oo labadii actadi unionadii aanu annagu ka fulinay Hargeysa xamar lagana fulinay mid gooni ayaa laga fuliyay marka dadka looyaradii waxay yiraahdaan juridically yani sharciyan marka loo eego dalbis ma raacin sharci himadaan waayo waxay wax la wada baas gareeyo qaynuun qura oo dalka isku mid ah isku xidhay in la baas gareeyo sciogliersi in un bagno di luce perlacea nasce il nuovo Stato al quale vanno i nostri auguri sinceri. dowladii u horeysay ee jamhuuriyaddii Soomaaliya ka curatay waxaa madaxweyne loo doortay Aadan Cabdulle Cusmaan halka ra'iisul wasaare uu noqday Cabdirashiid Cali Sharmaarke dowladdaasi Somaliland kama helin saami u qalmaa waxaanay abuurtay xaaladaasi cadho xoog leh oo sababtay in saraakiil reer waqooyigii ay 1961 isku dayaan inay inqilaab ka sameeyaan waqooyiga inkastoo aanu guulaysan sagaalkii sanadood ee labada dal israaceen niyad wanaagsan baa la isku raacay waxaan anigu oran karaa niyad samidu in bila ayuun bay jirtay niyadii iyo hamadii lala galay iyo rajadii laga qabay israacaas wanaagii laga rabay inuu keeno si muddo yaroo gaaban ayaa wax soo dhex galeen oo sidii laga rabay ay u noqon waayeen maxaa ka marxaatiya 10 December 1961 israaci sanad iyo 5 bilood iyo badh muddo laga joogo ayaa inqilaabkii ugu horeeyay dhacay inqilaabku muxuu u dhacay inqilaab laguma dhigo wax wanaagsan inqilaab waxa lagu dhigaa wax la diidan yahay oo hab kale oo lagu bedelo la waayay dhowr iyo 20 sarkaal oo dariisho sare leh oo Somaliland u dhashay ayaa isku raacay inay inqilaab dhigaan oo inqilaabkaas uu noqdo mid dhaliya madax Somaliland ka tirsan oo dabeetana hor fadhiisata Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliyeed oo dabeetana heshiiskii la isla galay meelaha ka qalloocday ee la diidanaa ee Somaliland dhibsatay ee tiri heshiiska umaanaanu gelin in dhibaatooyinkaas ay anaga nagu dhacaan in laga wada hadlo ayaa loo sameeyay
inqilaabkaas nasiib daro iyo nasiib wanaag garan maayo hadee waxay noqon lahayd gacan uur ku jirta ilaahun baa taa og waxay noqon lahayd inay faa'iido inoo lahaan lahayd iyo in kale laakiin se waxay ku tusaysaa marxaladii inay jirtay duruufa inay jireen kalifay in inqilaabkaas la isku dayo nasiib daro halkii uu wax ka bedel lahaa wax ka hagaajin lahaa inqilaabkaas oo dareen gelin lahaa xukuumaddii muqdisho deganayd madaxweynihii ra'iisul wasaarayaashii wasiirihii dowladdii wasiiradii baarlamaankii halkay dareen ka gelin lahayd oo nahay wallahi walaalaheen dadkii inaga da'weynaa ee xornimada horteen qaatay ee inoo soo halgamay inagoo mustacmaro talyaaniga ku jirna inoo soo halgamay waxanay diideen ay iska gilgileen ay ka gilgisheen ay inqilaabka u dhigeen wax u qalma maahay bal hadda aynu dib u eegno oo bal xalilo inaan qori lagu raadinayna aynu xal u raadino may odhan way seegtay dowladda cusub ee Soomaaliyeed waxay muddo yar kadib socdaal ku soo mareen wadamo dunida ka tirsan si ay u kasbato xidhiidho saaxiibtinimo ra'iisul wasaare Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo la kulmay madaxweynihii Mareykanka ee waqtigaasi John F. Kennedy. Prime Minister Abdirashid Ali Sharmati of the Somali Republic is expected momentarily at the White House in Washington for his first meeting with President John F. Kennedy. 27 November 1962 waxay ahayd markii ay guud ahaan si aad ugu diyaar garoobeen in wadankooda ay ku soo dhaweeyaan saaxiib Afrika oo aad u weyn ra'iisul wasaaraha wadanka Jamhuuriyadda Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxaana wafdigaasi ra'iisul wasaaraha ku soo dhaweeyay aqalka cad horkacayay madaxweynihii waqtigaasi ee wadanka Mareykanka Mr. John F. Kennedy. Mr. Prime Minister, separated as we are by geography and history, we also marka laga yimaado kala tagsanaanta juqraafi iyo taariikh ahaaneed ee labadeena wadan haddana nidaamka kala qaybsanaanta awoodda maamulka iyo sharciyadda iyo sidii loo ilaalin lahaa xorriyadda shakhsi ahaaneed waata uu waddankayaga Mareykanku dadaalka aadka ah u galay aad baan ugu faraxsanahay in aad na soo booqato kuna soo dhawow. Mr. President, I have great pleasure to convey to you and to the people of the United States the warmest greetings from the President of my country, from the government and the people of the Somali Republic. I'm looking forward to our meeting, which I'm sure will contribute on the creation of good relations between our two countries. Thank you. mudane madaxweyne waxaan ku faraxsanahay in adiga iyo shacabka reer Ameerikaba aan idin soo gudbiyo salaan aad u qiimo badan oo idinka sido madaxweynaha iyo ummadda Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa in shirarkeena ay ka soo baxaan arrimo si adkeeya xiriirka labadeena wadan isku darkaasi inagoo dawladda iyo iyagoo trusteeshipka ku jira Soomaaliya ayay u dhacay December bay ahayd inay ka baxaan trusteeshipka ka baxaan oo Talyaaniga gacanta ku hayay kolka imika waxaanu ka daba joognaa innagaaba kursiga lahayn inaynu halka ka doonano ayay ahayd ma ahayn maanta inaynu iyaga marti uga noqono kolka waa taariikh u baahan in muxuu ahaa la qoro waxaynu sameynay waxaynu qaadanay oo inu aqbalnay si loo helo shantii Soomaaliyeed ee lagu taamayo si loo helo waxaynu aqbalnay in caasimaddu xamar ahaato madaxweynuhu Soomaaliya ahaado prime ministerku Soomaaliya ahaado foreign ministerku Soomaaliya ahaado daakhiligu wasaaradda daakhiliyana wasiirka daakhiluguna Soomaaliya ahaado
labada ciidan madaxdooduna booliiska iyo muxuu ahaa militariguna ay Soomaaliya ahaadaan si ay u dhacdo muxuu ahaa israac nasiib darro waxa ah in la fahmi waayo muxuu ahaa arrintii dabeetana dawladihii Soomaalida ee sibilka ahaa ee markaa ee cabdiyadii muxuu ahaa Cabdirasaaq iyo Cabdirashiid iyo cabdiyada lahaa halka qabiil bay ka bilaabeen sida runtaa waxay ku dacaadeen jireen Cabdillaahi Ciise iyo qoladii ka horeysay trustshipka ku jirtay GS-ka gaadiga waxa la oran jiray governo Saad bay u bixiyeen markii governo Soomaaliya ka ahayd waa tan ilaa imika nala socotay ninka madaxweynaha oo reerkooda lagu magacaabo inuu muxuu ahaa ay reer ku leeyihiin madaxweyne halkaas ka soo bilaabantay 1967 waxaa Soomaaliya la doortay dawladdu madaxweyne ka yahay Cabdirashiid Cali Sharmaarke ra'iisul wasaarahana uu ka noqday Maxamed Ibraahim Cigaal dawladdaasi muddo ka yar 2 sano ayay talada gacanta ku haysay waxaana loo arkayay inay tallaabadaasi dheelitir ku samaysay jamhuuriyaddii midowday ee Soomaaliya xilligaasi la doortay Maxamed Ibraahim Cigaal waxaynu dib u xasuusanaynaa waraysi ay BBC-da qaybteeda afka Soomaaligu ka qaaday ra'iisul wasaaraha cusub 1967 lixdii bishii Juulaay ee sanadkii 1967 madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaake wuxuu jagada ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya u magacaabay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo ka soo jeeday gobolada waqooyi ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Cigaal in laga dhigay ra'iisul wasaaraha dalku waxay dheelitir ka dhigtay labadii dhinac ee Jamhuuriyadda ku midoobay xaashiyaha sooyaalka siyaasadda Soomaaliya dadka rogagaana waxay isla qirsan yihiin in madaxweyne Sharmaake uu qaaday dhab ku dayasho mudan horaantii bishii Juulaay ee isla sanadka Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal wuxuu soo dhisay golo wasiiro oo ka kooban 17 wasaaradood sharciyada iyo goobaha lagu shaaheeyay Muqdisho iyo golayaasha siyaasadda ee dalku waayaha waxa ku batay xanshashaqa iyo weydiinta ah baarlamaanku inuu ansixin doono wasiirada uu soo xushay Masar Cigaal laanta afka Soomaaliga ee BBC-du waxa ay 1967 iyadoo aan wali la ansixin xukuumadda uu soo dhisay Masar Cigaal ay la yeelatay waraysi hadal ah hadalka waraysiga ahna waxay ku weydiisay su'aalo ku aadan siyaasadda dalka uu ku hogaamin doono iyo in baarlamaanku uu ansixin doono xukuumaddiisa hadalkii waraysiga ahaa ee Cismaan Badawi oo BBC-da ka tirsanaa uu la yeeshay Masar Cigaal wuxuu u dhacay sidaas ra'iisul wasaare dawladdan cusub ee aad samaysay waxa ugu weyn in wasaaradii tiradeedii ay korodhay waqti dhaqaalihiina uu circiraayo miisaaniyadeennuna sanad kasta ay isdhinto ma kula tahay taasi danta waddanka inay wax tarayso waxay ila tahay danta waddanka inay wax tarayso waayo sababtu waxay tahay waddanka sideenan dhaqaalihiisu xun yahay ama miisaaniyadiisa cajisi ku jiro ee aan iskeenin laba siyood baa wax lagaga qabtaa mid waxa weeye in dalka khidamaadkii dhaxdiisa laga qaban jiray in la dhimo oo dhakhtarada la yareeyo bilayska la dhimo armiga la dhimo dawladda dadka u shaqeeya la dhimo oo sida miisaaniyadii markaa naaqisinayo la isku gaarsiiyo sidaas waxa weeye si aan markaa dhaqaale ku kordhaynin wixii jiray unba wax la dhimay ayaa wax laga dhimayaa wax la kordhinayaa meeshii ma ay jiraan waxay ila tahay inay tahay haddii aan Soomaaliya kelmad ugu baaro isnuugu dhaqaalihii waddanka isagu isnuugayo oo kale weeye sida kale ee caalamku wax kaga qabto aniguna aan sidii kaga dayo waxa weeye in dalka wixii ka soo baxay la kordhiyo oo dadka sidii markaa waxay lagu kordhinayeen ay noqoto in dadkii shaqaalihii la ballaariyo oo dhul wax ka soo baxayaan markii la helo inta dadka shaqeeya loo sameeyo wax ka soo baxaan oo mesela meeshii haddii ay lagu khasiro malyan shilin ay 4 malyan soo saarto markaa 3 malyan oo faa'iido ayaa meeshii ka soo baxay marka aniga waxay la tahay waxa aan kordhiyay waxa waddanka faa'iido u keenayo taqaddum keenayo ra'iisul wasaare ma kula tahay dawladdan aad samaysay inay heli doonto sawdkii kalsoonaanta arrinkani arrin baarlamaan ku shaqo leeyahay weeye kalsoonida maxay ahayd dawladda heliinkeeda iyo waayisteeda
marka gacan rag kale wax ku jira waxay la tahay casnimo yar baa ku jirta haddii ay sasiisi oo la yiraahdo waa helaya waxaan islaahay anigu si inaan helayaa baan qabaa sababta aan u qabaana waxay tahay de waxaan ahay neeftihin oo kale hore waxa la eega arkay xumaanina ma ay jiro dadka in badan oo guri ay qabtaana way jirtaa marka in raggii baarlamaanka yidhaahaan bal ninkan aan eegno wuxuu la soo baxo ayaa filanaya marka sidaas ay la tahay inaan fiqo ku hela ra'iisul wasaare wadanka intiisa badan waxa imika aad looga dhawaaqaa khiyaanada iyo qaraabakiilka iyo xukmi xumida xafiisyada dawladdaadu ma damacsan tahay waxyaalahaas xunxun inay la dagaalanto oo ay baabi'iso maanta warqad dheer baan u qaybiyey dadka dawladda u shaqeeya waxaan kala hadlayay sidii bal iyaga dhaqaalahoodana loo hagaajinayay sharafkoodana loo dhowraayay iyana dalkii shaqadiisii ay ugu dadaalayeen ee dadkii u simayeen ee horumarkii dalka ay sahmiga uga qaadanayeen marka wax hore anigu aan ka daba tagay inuu jiri jiray anigu waxaan ku qalqaal jiray haatan haddii aan halkii qabtay in labadii geesoodba raggii isna wax dhaqaaleey iyagiina la dhaqaaleeyo isna wax dhaqaaleeyaan oo Soomaali la simo oo dalkii iyo dadkiiba loo shaqeeyo oo loo noqdo maxay hayde loogu shaqeeyo si xilkasta oo adduunkii dalkana maxay hayde laga dadaalo inuu wixii dalka soo galaa dalka soo gaaraan inay fardhaxda ka dusin anigu arrin ka dadaalaya weeye hore waxbaa loo sheegi jiray waxaan leeyahay raggiina waan kala taliyay aniguna waa iska waaniyay waana in lagu shaqeeyo waxa la tirona hadii jireen la tiro hadii aanay jirin in laga dadaalo aan dib aan u bixin ayaan ku dadaalayna 1969 waxaa madaxweyne cabdirashiid cali sharmaarke lagu dilay safar uu ku tagay magaalada Laascaanood kadibna waxaa Soomaaliya afkambi ku qabsaday ciidamada militariga uu hogaaminayay General Maxamed Siyaad siyaasiyiin iyo dad aqoon-yahana ayaa inqilaabkan u nisbeeyay dawladdii Ruushka oo dana siyaasadeed ka lahayd Soomaaliya waqtigaas waqti ka horeeyay oo 60kii ku siman ayaa dad gacanta inuu gelinay inagoo isugeen ama isla qabweeyna Soomaaliya isla qabweyntahay isla waxba la kama qaadi karo ayuu niman Ruushan la yiraahdo Soviet Union dadkeenii gacanta u gelinay oo militarigeena leeyahay samaysta dabada la taga Ruushan la taga gudaha idinku ku tababara idinka kiya dalacsiinaysan dalacsiyo idinku wata diyaar bay ahaayeen ma gooray dhacdaba inay ka horeyso 769 inay ka horeyso ayay filayeen kolba waxay duruuftu tahay 69 kii sababta 69 ku timiyay lagu dadajiyay ee Cabdirashiid ku dhintayna waxay tahay markii aan anagu meesha soo qalay ayaanu lismaanta ku sameeynaanu furfuray waxa laala waxay xarkeen lagu xidhay siyuu noogu xidhnaa ka gaarsiiyay haddaba intaan dhamayno waxaan dibadda idin tuurinayahay Ruushan baa sameeyay firaaqi maxamed siyaad ma sameeyay Ruushan baa sameeyay maxay hayde ayaa sameeyay halkii isagaana waxa hore aad sheegaysan xisaabtii badnaydiyo waxay kulli isaa ka wada dambeeyay oo istiqraar dalku inuu helo aan marnaba doonin isagu ilaa uu gacanta ku qabto. When a head of state is assassinated, it is very rare that there is not a political motive or a political explanation, but it may be well below the surface. It may be obscured because of the interests of the parties or the importance of the parties concerned. It's easy to believe the current story that a demented soldier made a decision unrelated to political reality for personal or local reasons. But of course, we live in a period now when archives are being opened, and there is little doubt in my mind that the opening, for example, of the KGB archives will reveal a greater... way yartahay in la arko nin xukuumad u sareeyo oo la dilay oo aanay ka dambeyn dilkiisaasi dana siyaasadeed danahaasi oo muhiim noqon kara ururada siyaasadeed ee waqtigaasi jira
way fududahay in la rumaysto hadda in nin askari ah oo aan xiskiisu u dhamayn uu ku kaco tallaabooyin amaba uu qaato go'aano aan waafaqsanayn waaqiciga siyaasadeed sababo shakhsi ahaaneed awgeed laakiin waxaa hadda dabcan la nool yahay waqti kaydadka daaha laga rogay si ay faahfaahin dheeraada noogaga soo gudbiyaan tusaale ahaan dokumentigii hay'adda sirdoonka ee ruushka ee KGB waxa ay soo bandhigtay dokumentiyo nuxurkooda uu iftiiminayay dhibaatooyinkii waddanka ka dhacay iyo doorkii uu ku lahaa Siyaad Barre inkasta oo aanay jirin hadda cadeymo adag oo arrinkaasi lagu sii dhigi karaa lug farabadan baa ka yimid dawladaha mugdi farabadan baa dadkii ku abuurmay oo nayaayirkii ay dadku qabeen iyo rajadii ay qabeen isticmaalka haddaa gacantiisa ka baxdaan oo dawladda idinku leedihiin aydan maxaanku dhahdaay aydan samaysataan nolol tan ka wanaagsan iyo nidaamkan ka wanaagsan oo ay idinku leedihiin baa ayaa soo baxaya hogaamin xumo dawladaha ka soo baxay magacyo fara badan oo kala taataadaba dadku ay u bixiyeen suugaan fara badan baa lagu tiriyey dawladihii cawaaraa loo bixiyey waxyaalo fara badan oo kalaa ka soo baxay musuq maasuq fara badan baa ka yimi qabiil nidaamkii dawladeed huwan baa ka yimi isnaac dadkii Soomaaliyeed baa ka yimi taariikhda dayada goobjoog baan ahaa reeriyo muqdisho ka shaqeynay xamar baa joogay madaxweynuhu isagoo waqooyi ku soo maqan buu dhintay markii uu dhintay muddo yar dabadeed ba inqilaabkii baa dhacay 21 Oktoobar buu Maxamed Siyaad Barre beesha qabsaday shacbigana wuxuu sii sheegay mooyaane wax ka wada raaliyo oo wada asoolan militariga ayuu ekaa markii halkaa maraysay